halkani waa BBC oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban afimada magaalooyinka qaar iyo weliba barteena internetka bbcsomali.com. duhur wanaagsan dhagaystayaal waa axad 22 bisha Maarso saacada Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenani waxaa kamid ah dadka dalka Talyaaniga ugu dhimanaya coronavirus oo sii kordhaya iyo cudurka oo soo gaaray dalal cusub oo ka tirsan qaaradda Afrika. reer guuraha ka barakacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii uu ka jabay ceelkii ay biyaha ka cabi jireen. biyalaan baan ka cabanayna biyalaan aad u adag oo in muddaaba nahaysatay magaaladii waa laga guurayaa dadna waa ka guureen dadna hadday diyaar yihiin inay meel biyo ka aadaan. ganacsatada qaadka ee magaalada Mandera oo ka cabanaya dhaqaale la'aan soo food saartay. waxaan u mudaharaadaynaa waxaan nahnay dad oo nin walba ilaahay risaqa meel aad u saaray maamulooyin oo waxaan nahnay qaad ku korsato jaamacadaha ugu baxda iskuulaha ugu baxda secondary-ga ugu baxda qutulyoonkooda ka raadsad. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenani duhurnimo oo ay soo saartay Samiir Cabdullaahi Jaamacan oo Cabdiraxmaan Xaaji Cabdi ayaan la socodsiinaya. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka idaacadeena duhurnimo iyo Mawlid Xaaji Cabdi oo stuudiyaheena London ka soo tabinaya. mahadsanid Cabdiraxmaan. boqolaal dadka wadanka Hindiya ayaa ku nagaaday guryahooda tani oo jawaab u ah dalabka dawladda ee ku aadana xanibaad lagu gulleeyahay in lagula tacaalo isku gudbinta fayraska corona. magaalooyinka waaweyn iyo degmooyinka dacallada Hindiya ayaa u muuqda kuwa cidla ah. gaadiidka dadweynaha oo ay ka mid yihiin duulimaadyada gudaha ayaa la hakiyey 14 maalmood oo bandow ah. qadadka tareenada Hindiya oo caadiyan maalintii daabula 25 milyan oo qof ayaa daboolka ka qaaday inay baajiyeen dhammaanba adeegyadii socotada ilaa iyo dhamaadka bishan. Rwanda ayaa lagu soo rogay tallaabooyin adag taasi oo jawaab u ah faafitaanka fayraska. waxaa ka mid ah arrimaha la qaaday xiritaanka dhammaan xuduudaha iyo in dadku ay iskaga sodcaalaan gudaha dalkaasi. maqaayadaha, suuqyada iyo dukaamada ayaa la xiray aanse ka ahayn kuwa iibiya waxyaabaha daruuriga ah. badii dadka shaqeeya ayaa loo sheegay inay guryahooda ka soo shaqeeyaan. Ghana waxay ku dhawaaqday inay xiri doonto dhammaan xadadkeeda waxaana la fasaxay gawaarida xamuulka iyadoo qorshahani uu dhaqan galayo caawa saqda dhexe. dhowr wadan oo Afrika ku yaal ayaa soo wariyay kiisas hor leh waxaa ka mid ah Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Ethiopia iyo Nigeria. dalka Kenya gudoomiye ku-xigeen gobol ayaa la xiray laguna qasbay inuu galo xarun karantiil oo ay dawladdu maamusho kadib markii isaga iyo darawalkiisu ay ka biyo diideen inay galaan karantiil kadib markii laga helay fayraska. hogaamiyaha sare ee dalkaasi Iiraan ayaa geeska geliyay yaboh ka soo yeeray Mareykanka oo ku aadan inuu gacan ka geysto dadaalka dalkiisa ugu jiro la tacaalida fayraska corona iyadoo Iiraan ay ka mid tahay dalalka uu sida ba'an u halakeeyay fayraska COVID-19. Ayatollah Khamenei ayaa ku nuuxnuuxsaday in Iiraan dhowr mar loo soo jeediyay caawimaad laakiin wuxuu carabka ku adkeeyay in taasi ay ahayd wax uu ku sifeeyay la yaab maadaama Mareykanka quddiisa ay dhibaato ka haysato agabka lagula dagaalamo fayraska. wuxuu sheegay in Iiraan ay joogto heer ay uga gudbi karto dhibaatooyinka uu ka mid yahay fayraska corona. halka warkaasi aad kala socotaan waa BBC. nidaamka xabsiyada ee dalkaasi Mareykanka ayaa xaqiijiyay in maxbuuskii ugu horeeyay laga helay fayraska corona. maxbuuska ayaa loo qaaday cusbitaal kadib markii uu ka sheegtay xabad xanuun laakiin waxaa dib loogu soo celiyay jeelka isagoo la geliyay karantiil kadib markii fayraska laga helay. tiro ka mid ah kaniisadaha waaweyn ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa u muuqda inay iska idhatireen codsigii dawladda ee ku aadanaa in la baajiyo isu imaanshiyaha diimeed ee xadda iyadoo kordhayo faafitaanka fayraska corona. wakaaladda wararka u faafisa dalkaasi ee Yonhap ayaa leh boqolaal kaniisadood oo ku yaala dalka daafihiisa ayaa qabtay kulamo diimeed inkastoo hogaamiyaasha kaniisaduhu u sheegeen in dadka cibaadeysanaya ay dhowr mitir isku jirsadaan ayna xirtaan afufka sanka iyo afka lagu daboosho. ugu dambeyntii dhulgariir ayaa ruxay magaalada Zagreb ee caasimadda dalkaasi Croatia kaasi oo waxyeello u geystay dhismayaal dadkana ku qasbay inay u farxadaan wadooyinka.
wiil 16 jir ayaa la sheegay in uu dhintay kadib markii uu ku soo dumay dhisme. kooxaha ku takhasusay aqoonta dhulgariirada ayaa sheegay in dhulgariirku uu ahaa mid xooggan isagoo cabirkiisu uu gaarayay in ka badan 4 uuna hoos u galay dhulka ilaa iyo 10 mitir aan ku celiyay halka ilaa iyo 10 kilomitir. qof goobjoog ah ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in dhulgariirku uu socday 10 ilbiriqsi waxaana xigtay dabayl xoog leh. warkii dunida ayaa intaasi ka eeg